sidee ayuu u dhintay Allah u naxariistay Rooble Warsame oo warbixin faahfaahin qoto dheer ka bixinaysa sida uu u dhintay Rooble oo maanta oo ah 18 bishan lagu daabacay website-ka Jarmalka taas ee Jarmalka ka soo baxa warbixinta waxaa qortay gabar wariye ah oo lagu magacaabo Stevi Unsleva February 2019 ayuu Rooble ku dhintay xabsi ku yaala magaalada Schweinfurt ee gobolka Bayern ee koonfurta Jarmalka ilaa hadda ma cadda sababta geerida muwaadinka Soomaaliga ah waxay ahayd habeen cad oo qabow ah 26 bishii Febraayo 2019 magaaladuna waa Schweinfurt waxa Rooble Warsame loo soo kaxeeyay xabsi wuxuu isqabqabsi ka jiray dhisme qaxooti ay deganaayeen oo ku yaala wadada Kasenenweg Rooble oo 22 sano jir ah qaxooti Soomaalina ahaa iyo qof kale oo ay isgaranayeen ayay muran isqabqabsi ku saabsan siyaasadda Soomaaliya ku dhexmaray halkaasi way cabsanayeen labadoodaba waxayna sameeyeen buuq ilaalada xarunta ayaa wacay booliska 3 aroornimo booliska waa ay yimaadeen kadibna way iska baxeen booliska ayaa mar kale 4:45 daqiiqo la wacay waxayna xireen Rooble Warsame abaare 5 subaxnimo Rooble Warsame waxa lagu xiray qolka lambar 2 ee dhulka ee ka tirsan xabsiga Schweinfurt ee booliska sabab amni darteed waxa laga siibay dhammaan dharkii uu watay marka laga reebo nigis yar oo watay waxa la siiyay maro uu huwado qolkana waxa kaliya yaalay joodari iyo sariir alwaaxa suuli ama musqul ayuu qolku lahaa waxa la gaaray 6 subaxnimo xilliga shaqada la iska bedelo balse qofna ma imaanin si uu u kormeero qolka saacad iyo bar ayaa ka soo wareegatay sarkaalkii bilayska ahaa ee ku shaqada lahaa ayaa socod kormeer ah bilaabay qiyaastii 7 iyo barkii aroornimo ayuu arkay Rooble oo jilbaha yara laaban inuu fadhiyana la moodo cad mara ah oo hugiisii laga jaray ayaa qoortiisa ku xirnayd halka dhinaca kale ee maradana ay ku guntanayd 50 cm meel ka sarreysa madaxiisa dhulka agagaarkiisa ah waxa ka buuxay caliyo ama candhoof iyo dhiig sarkaalkii bilayska ahaa ayaa ka furay guntigii wuxuuna wacday xoojin isaga iyo ciidan kale waxay isku dayeen inay Rooble gargaar degdeg ah siiyaan si ay u badbaadiyaan hadiiba uu badbaadayo dhakhtar xaalad degdeg ah ayaa loo yeeray wuxuuna yimid 7:45 daqiiqo subaxdii 8 subaxnimo iyo 10 daqiiqo wuxuu dhakhtarku ku dhawaaqay geerida Rooble Warsame Allahu naxariiste waxaa la sheegay in Rooble Warsame uu kala jeexay marada ama bustaha huga u ahaa kaas oo ah nooca ay soo saartay shirkadda Ibena oo loo arko mara aan kala jarmaynin taas oo lagu xiray meel dhirkeedu yahay 1.5 mitir isaga ayaana isku daldalay sidee ku suuragali kartaa in 1.78 mitir dhirkiisu uu yahay uu isku daldalo maro lagu xiray 1.5 mitir meel u jirta sidaasi waxa isweydiiyay sharciyaqaan Eberhard Schultz oo ay qoyska Warsame u qabteen inuu dacwada ku matalo si kastaba maxay tahay sababta uu isku dili karo Warsame waxa uu haystay deganaansho qoys iyo saaxiibo wuxuuna ahaa nin muslim ah oo garanayay inuusan bannaanayn inuu isdilo ayuu raaciyay abukaataha Ute Kursbein oo kiiska diiwaangelintiisa kala shaqaynayay hindisaha la dagaalanka midabta koorka ee Berlin ayaa u arkaa in arrintan aanay macquul ahayn oo aanay suuro geli karin inuu jeexay marada askarta bilayska ee la wareystay midkoodna ma sharaxi karo sida ay taasi suurtagal ku noqotay ayuu yiri Ute huga bustaha ah ee ay samaysay shirkadda Ibena waa 1.40 mitir oo dhinac ah iyo 2 mitir oo dhinac ah waxaana badanaa lagu isticmaalaa ama laga isticmaalaa xabsiyada gobolka Bavaria ama Bayern waxaa loo naqshadeeyay inay ka hortagaan inuu qofka isku daldalo Rooble miyuu ku jeexay ilkihiisa sida uu ku andacooday sarkaal bilayska ah oo uu ramay Main Post haddii ay sidaas tahay warbixinta baarista sababta dhimashada ayaa lagu soo dari lahaa balse warbixintaas meelna loogama xusin jeexitaanka sida in ilkaha loogu kala gooyay iyo wax la mid ah Rooble Warsame waxaa xiray booliska 3 isbuuc ka hor dhimashadiisa saldhigga bilayska ayuu dhowr jeer madaxa ku garaacday biraha qolkii uu ku xirnaa wuxuuna yiri halay dilo ama aniga isdilaya sida ay sheegeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee magaalada Schweinfurt waxa Rooble loo qaaday xarunta dadka dhimirka ee Verneck halkaas ayuuna habeen ku soo qaatay maalintii xigtayna waa la soo daayay kadib markii dhakhtarka uu ogaaday inuusan jirin halis shakhsi ahaan uu isku geysan karo ama dad kale uu geysan karo
arrintan ma aysan ogaanin saraakiishii booliiska ahaa ee ku shaqada lahaa habeenkii dhimashadiisa maxaa yeelay Rooble magaciisa waxaa diiwaanka bilayska iyo diiwaanka guud ee ajaanibta loo geliyey si kale taas ayaana ah sababta aan si gaar ah loogu dareen yeelan arrintiisa kadib baaristii meydka ee sababta dhimashada oo lagu qaaday xarunta baarista garsoorka caafimaadka ee magaalada Würzburg waxaa la qorsheeyey in meydka la gubo qaraabada ayaa arrintaas ka hortagay iyagoo kaashanaya jaaliyadda masjidka ee magaalada Schweinfurt waxay doonayaan inay Rooble dhaqaan oo ay kadib aasaan sida muslimiinta ay sameeyaan afartii bishii Maarso ku dhawaad 4 toddobaad kadib dhimashadii Warsame qoyska ayaa bilaabay inay dhaqaan jariirada Taz ayaa heshay sawirro laga qaaday xilligaas qaraabada waxaa gilgilay dhaawacyada ku yaalay Warsame korkiisa ma aysan arkin sumad muujinaysa inuu isdilay marka laga reebo xinjiro dhiig ah oo qoorta kaga yaalay iyo dhiig xabadka kaga yaalay iyo jilib qalan ama furan maxamed yaasiin oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Maalmo ee Sweden ilma adeerna la ahaa Warsame ayaa sheegay in dhaawacyada ka muuqday ay muujinayaan jiritaanka dagaal oo aysan u muuqan isdilid warbixinta autopsiga ayaa xustay raadadka dhiig sanka dhexdiisa ah afka dhagta bidix iyo gacmaha sidoo kale jilibka bidix xusulka bidix qoorta dhinaceeda iyo meelo kale ayaa lagu xusay warbixinta inay dhaawacyo ahaayeen dhaawacyada ayaa lagu macneeyay kuwa stroke ah balse wargeyska ayaa isweydiiyey sida ay dhaawacyadaas ku iman karaan haddii ninka uu jilbaha dhulka ku dhufsaday oo uu qurbaxay oksijiin la'aan waa qaadan lahaa inay dhaawacyo ahaayeen ayuu yidhi Bibla Basu oo ka tirsan ololaha dhibanayaasha rabshadaha bilayska ee koob ee magaalada Berlin masjidka Schweinfurt ayaa kiiska ku wargeliyey Basu wuxuuna tagay Schweinfurt oo uu qaraabada kula kulmay wuxuu yidhi kama uusan soo dhicin meel 5 mitir ah warbixinta baarista meydka ayaa ugu dambeyn sheegtay in iyadoo la tixraacayo baarista iyo warbixinta bilayska in arrintan loo qaadan karo isdil warbixinta baarista meydka ma soo bandhigin wax caddayn ah oo la xiriira in dhimashada ay ka dhalatay rabsho isticmaalka ereyga ah sababta dhimashada waa muhiim sida uu wargeyska qoray warbixinta baarista meydka meesha kama aysan saarin in Rooble Warsame dhibaato loo geystay ka hor dhimashadiisa Rooble waxaa la aasay Jimce bishii Maarso 8 2019 ku dhawaad 40 qof ayaa ka soo qayb gashay oo ay ku jiraan xubnaha qoyska oo Sweden Norway iyo Ingiriiska ka yimid bilayska ayaa xitaa yimid meesha iyagoo dhowr ah qaar dhar cad ayay ahaayeen qaarna way libisnaayeen lama oga ayuu wargeysku yiri sababta ay meesha u yimaadeen bishii Oktoobar ee 2019 xafiiska xeer ilaalinta Schweinfurt ayaa hakiyay baarista galka si kastaba kiiska ayaa dib loo furay July 2020 xeer ilaaliyaha guud Axel Weibrecht ayaa warbaahinta ka ogaaday in qof marqaati ah oo ku ag xirnaa Warsame uu maqlay qeylo warbaahintana waxay soo jeedisay in marqaatigaas la dhageysto ma ahan inaan wax shaki muujinaya aan helnay balse ma doonayno inaan wax ka tagno ayuu yiri Weibrecht wuxuu intaas ku daray in sababta uu baarista dib ugu furay ay arrintaas tahay dhalashada marqaatiga kama muuqato galka baarista sida ay ku waramayaan dhaqdhaqaaqayaasha waxaa la sheegay in ninkaasi uu noqon karo ninkii la murmay Rooble Warsame habeenkii kaamka laga soo xiray marqaatiga habeenkaas ayuu ku hoyday saldhiga waliba qolkii uu ku dhaganaa Rooble halkii uu ku xirnaa maalintii xigtayna booliska ayaa sii daayay iyadoo aan wax su'aalaha la weydiin maalmihii xigay waxaa la sheegay in marqaatigii la waayay oo kaamka laga waayay iyadoo aan la aqoon halka uu qabtay wargeyska waxa uu arrintaas ku macneeyay in xiro kale oo qaxooti ah ay u bedeshay dowladda Unterfranken ama inuu dhuuntay qaraabada Rooble oo ninkaas la hadlay ayaa sheegay in booliska cabsi badan uu ka qabay wuxuu sheegay inuu ka cabsanayo in wax uu la kulmay ay saameyn taban ku yeeshaan deganaanshihiisa wuxuu kale uu sheegay inuu habeenkaas uu Rooble Warsame dhintay uu maqlay cabaad hal mar joogsaday nin kale oo saddexaad ayaa ku xirnaa meel ku dhagan qolka uu Rooble ku xirnaa isla habeenkaas isagana lama wareysan ayuu wargeysku daabacay saddexdaba waxaa Rooble iyo labada marqaati ay ahaayeen Soomaali ku wada noolaa xirada qaxootiga waxayna u badan tahay inay isgaranayeen xeer ilaaliye Axel Weibrecht laguma wargelin dhalashada iyo halka ay ku dambeeyeen marqaatiyaasha labada ah ka hor bilowga toddobaadkan ugu dambeyn email ayuu qoray waxaana emailka ku qornaa waxaa hadda ii suurta gashay inaan la hadlo sarkaalkii bilayska ahaa laba muwaadin oo Soomaali ah ayaa falka kadib la arkay ama lagu arkay laba qol oo ku dhagan halkii uu ku xirnaa labada qof waa la aqoonsaday midkood waxa lagu hayaa meel uu ku sugayo tarxiil midka kalena bishii Maarso 2019 ayaa la tarxiilay qofka labaad waxa la yaqaan halka uu degan yahay oo aan ahayn aaga waxaan qiyaasayaa in isagana la dhageysan karo sidee qof marqaati ah
oo muhiim ah loo tarxiili karaa? miyaanay boolisku ka hortegi karin tarxiilkiisa ama aysan ugu yaraan dhegaysan karin inta aan la tarxiilin? ayaa la weydiiyey Vibrecht. wuxuuna ku jawaabay, lama filaynin in qofkaasi la waraysto. qolka saldhigga ee dadka lagu xiro waxaa loo naqshadeeyey in dadka ku xiran aanay xiriir samayn karin. gidaarku waa mid dhagax ah, qolkana waxaa lagu xiray albaab bir ah oo aad u culus. lama filaynin in qof ku xiran uu la socon karo waxa qol kale ka dhacayay. waxaa is yeeshay warbixinta baarista meydka iyo sida ay u arkayeen. wakhtigaas ma jirin caddayn muujinaysa in dhibaato bannaanka ka timid ay sababtay dilka Warsame. haddana iima muuqato raadka arrintaasi, ayuu yidhi xeer ilaaliyaha. waxa la yaab kale ee ku qoran galka baarista ayaa ah in aan la waraysan sarkaalkii bilayska ahaa ee arkay Rooble intii uu noolaa, si la mid ah sida loo waraystay saraakiisha kale, balse waxaa kaliya loo yeeray 10 daqiiqo. sarkaalka waxa uu sidoo kale ka mid ahaa askartii kaamka tagtay markii ugu horreysay ka hor inta aan la soo xirin, balse waxba lagama weydiin arrintaas. faylka waxaa ku qoran erey ah u eg ama loo arki karay su'aalo weydiinta ka hor, sida inay taas xusuus qor tahay oo kale. wuxuu xusay in Warsame habdhaqankiisa uu ahaa mid aan caadi ahayn. kiiska Rooble Warsame wuxuu u muujinayaa dhibaato kale. haddii dadka ku dhintaan booliska meel ay ku hayaan iyaga ay baaritaanka isku samaynayaan, ayay warbixintu tiri. waxayna intaas ku dartay in booliska dembiyada ee gobolka Bayern ay baarista wadeen, hase ahaatee meesha ay wax ka dhaceen iyo baarista meydka ay fuliyeen dambi baarayaasha booliska ee Schweinfurt. sidoo kale sarkaal bilayska ah oo ka socday Schweinfurt ayaa joogay markii meydka lagu baarayay magaalada Würzburg. haddii arrintaas loo fiirsado, waxa meesha ka cad bay warbixintu tiri inaanu jirin masaafo u dhexeeya booliska dembiyada baara ee Schweinfurt iyo gobolka. nin waardiye ka ahaa xarun qaxooti oo kale ayaa Rooble ku tilmaamay nin degan oo af Jarmalka si wanaagsan uga hadlayay. ma ahayn qof stress badan, wax dhibaato ah ma qabin, xaalad wanaagsan buu ku jiray, ma rumaysan karo inuu isaga isdilay, ayuu yidhi ninkaasi waardiyaha ahaa. waxaan qiyaasayaa inuusan aamusi karaynin, ayuu yidhi Maxamed Yaasiin oo in adeer la ahaa Rooble Warsame, kana tirsan golaha deegaanka ee magaalada Maalmo ee dalka Sweden. wuxuu la dagaalayay booliska ka hor inta aan la xirin. wuxuu yaqaanay af Jarmal yar. waxay ku saabsanayd khamri ama alkolo. booliska ayaa ku dhaleeceeyay arrintaas, balse wuxuu u sheegay inuu ka soo iibsaday mashiin kaamka ku dhex yaala. wuxuuna askarta weydiiyey dhibka ay leedahay. waxaa suuragal ah, buu yidhi Yaasiin, in askarta ay ka xanaaqeen arrintaasi. Yaasiin wuxuu hadda aruurinayaa lacag uu ka aruuriyo qoyska si warbixinta baaris gaar ah oo madax bannaan booliska looga diyaariyo.